بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الأخوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بما أتسكال تبارك وتعالى الله إنه نعموين فربضا oo aan la tiro koobi karin sida Ilaahay Qur'aan Kariimka inoo sheegay wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Ilaahay nicmooyinkiisa hadaad tirisaan ma koobi kartaan Allahaasi mahad buu leeyahay waana mudan yahay inaanu mahad celino oon amaano Rabbigeen tabaaraka wa ta'ala Ilaahay nicmooyinkiisa waxa ugu qaalisan ugu muhiimsan ugu qiimo badan nicmada diinta islaamnimada nicmada Ilaahay wuxuu siiyaa dadku doortay oo kaliya adduunyadu iyo nicmooyinkeedu dadka waa ka dhaxeeyaan oo Ilaahay gaalkana waa siiyaa muslimkana waa siiyaa sida Quraanka inoo sheegay kullan numiddu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min 'ataa'i rabbik wama kana 'ataa'u rabbika mahdhuura nicmada diintu waxay khaas ku tahay dadka Ilaahay doortay ee Ilaahay jecel yahay sida Ilaahay Quraanka inoo sheegay thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina Allah wuxuu leeyahay adoomadayda waxaan ka doortay kuwa aan dhaxal siiyay Quraanka Kariimka marka waa nicmo ku tilmaamaysa jacaylka Ilaahay doorashadiisa iyo in Ilaahay tabaaraka wa ta'ala agtiisa aad khayr iyo wanaag badan ku leedahay alxamdulillahi ala ni'mati al-iimaan walxamdulillahi ala ni'mati al-islaam walxamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat walxamdulillahi ala kulli haal Ilaahay wa mahad iskale tabaaraka wa ta'ala diintan Ilaahay ina siiyay walaalayaal muslimiinta oo inaga dhigay waa diin loogu talagalay bini aadamku inuu ku liibaano dadka haysta inay xasilooni iyo raaxo iyo deganaansho ka helaan adduunkana inay ku raaxaystaan aakhirana raaxadii weyneyd Ilaahay ridihiisa iyo jannada inay ku gaadhaan waxa kamida noloshan adduunyada sida ay diintu u nadaamisay u qaabaysay u hagaajisay haddii loo raaco dadku waa liibaanayaan mujtamaca ama dadku bini aadamku wuxuu ka kooban yahay fardi oo hal ruuxa qoyska oo laba ruux iyo ka badana nin iyo xaaska ninka iyo xaaskii caruurta iyo mujtamaca bulshada iyo dawladda ama shacabkii oo sii ballaadhay oo qaran iyo noqonay kulli diinteenu nidaam bay u dejisay sharciyadu waxay u dejisay nidaamkii ay ku socon lahaayeen noloshoo dhan inay diintani maamusho buu Ilaahay u soo dejiyay diintan islaamka ma aha diin gooni ku ah nolosha qayb kamida bal Ilaahay wuxuu u soo dejiyay inay noloshoo dhan iyadu maamusho hadaad fardi tahay haday qoys tahay haday bulsho tahay haday dawlad tahay diintana Ilaahay ugu talagalay inay dastuur iyo qaanuun iyo nidaamkii maamuli lahaa inay noqoto Ilaahay ugu talagalin dad muslimiina oo iimaan leh oo Ilaahay rumaysan oo aakhiro rumaysan oo anbiyada iyo malaa'ikta rumaysan oo qadarka Ilaahay rumaysan kitaabka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala intay haystaan haddana in ay nidaamyo kale iyo dastuuryo kale iyo dhaqamo kale soo qaataan Ilaahay ugu talagalin Allah wuxuu ugu talagalay diintan kaamilka
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله بايدي تبارك وتعالى ما أنت دينتي نيدين لما يستري ودين لما يستري وحبك مرد منا نعمة يدين كركي نكون لما يستري إسلام نمدنا أن رال يدين كان نقضي الدين هان مرك الدين لما يسترن ونولل شيء أو نظام لما يسترن لود شيء سيدي ربي تبارك وتعالى حقي سأدو قدن لهي سيدي آد مخلوق حقي سأدو قدن لهي حقي رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم حق لوذا والد حق درسك حق يحقوق ذا لوذا إسقبته حق عرورته أي والدك كليهين حقوق ذا والد كليه الماء كليه حقوق ذا أمضوا أي إسكول هذا هاي والدين الحقوق واي سيداس درادت بالنبي نوح صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه إلهي عد والبقى حق لحق سوسيي ودين عدالتك صليسا ودين أن روح أضل منين علشان جنس جيس والرق لوما سدبرسي لوما سمعيه إنه الرق يهي لوما سيو ودمرنا دمرنما لوما ظلميو وفقير ومسكين لوغو ما يستاغو وتاجر ومدحوين حقوق سيادة لوما سيو ودين عد والبحقي سيسيوه بوسكو منار لكتيوي دين تاسا إلهي إنو سودجي تبارك وتعالى لوغو تلقالي إنان كل ليبانو أدون كان نولال وناكسانو دقان إنان نكون نولانو آخرنا إنان نكو قوليسانو إلهي رضيه سيئة جندي تبارك وتعالى وحيالها مركة دين تان قدها وين النظام كابلاران دجيسي ee wax walba systemkiya nidaamka u dajisay hatta wax kale iska daayay nolosha qaybaha ugu yar ayay nidaam u dajisay waki hadithki Abu Daawud ay soo saareen Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu warda saxaabigaas qolo yahuuda waxay ku yiraahdeen laqad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-qira'a aw al-qira'a نبيجينو wax kasto idin baray hatta sidaad xaajada u gudan lahaydeen bimaana hatta markaad musqusha gashaan suuliga gashaan sidaad xaajada u gudan lahaydeen buu idin baray markaas wuxuu yiri Salman ajal wa rumbu ha wuxuu baray nabigu sallallahu alayhi wasallam markaan musqusha galayno maxal akhrinaya si xaajada loo gudanayaa sida la isaga nadiifinayaa marka laga soo baxo maxaa la akhrinayaa wuuna baray buuri sax macnaheedu waxa weeyaan diinta ina bartay musqusha iyo suuliga sidii loogu xaajo gudan lahaa nolosha inteedii kale inay ka tagtay suurtagal ma wax yar ma jiro wax weyn ma jiro ilaa nidaam bay ka dejisay qaybaha marka nidaamka ay u dejisay waxa kamid oo qaybaha ugu muhiimsan kamid ah qoyska xeer baa loo dejiyay qoyska nidaam baa loo dejiyay ilaa qoyska marka la asaasayo oo guur ku dhacayo oo labada ruux ay isguursanaya ay isdooranayaan ilaa markaas laga soo bilaabay sidee buu ninku haweeneydii nolosha la wadaagi lahayd sidee buu ku xulanayaa sidee bay gabadhu ninka nolosha la wadaagaya say ku xulanaysaa sifaadkee shuruudee qaabkee shuruuc bay ka dejisay ilaa marka guur ku dhacayo ilaa marka guriga la isugu yimaado ilaa marka nolosha la wadaagayo ilaa caruur markay timaado ilaa xataa aaska marka la is aasayo ay shuruuc ka dejisay حتى مركا الله يسعاسو كدب آسكا كدب أحكام بكسي دجس ولودي روحه إسقابي كنحيس مركا قويسكا مادام أوي هاي
bulkeetiga ama asaaska mujtamaca uu yahay baa laga dadaalay. sidaas daraadeed guryaheenu haddaynu rabno inay noqdaan guryo degan, guryo xasiloon, guryo lagu raaxaysto, guryo carruurtuna ku degto carruur khayr badani ka timaado, labada ruux ee ku wada noolna ay noqdaan laba ruux oo nolol degan ku wada nool, waxaa laga maarmaan ah guryaheena inaynu ku dhaqno shuruucda ilaahay soo dejiyay tabaaraka wa tacaala, nidaamkii ilaahay ugu talagalay. wax walba haddii nidaamkii loogu talagalay uu garab maro waa kharibnaa, dhib baana lagala kulmaa. qaabkii ilaahay ugu talagalay shaygu markuu ku socdana masaalixdii ilaahay ugu talagalay baa ka dhalata, wanaag badan baa laga gaadhaa. sidaas daraadeed guryaheena waa inay noqdaan guryo ku socda sharciga ilaahay tabaaraka wa tacaala. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay rag iyo dumarku inay isguursadaan oo ay kulmaan sababta bini aadamka jiritaankiisa ku salaysan. markii ilaahay aadam uu abuuray calayhi wa ala nabiyina salaatu wasalaam, nabi aadam aabaheen ilaahay wuxuu ka abuuray isaga laftiisa ayuu wuxuu ka abuuray xaaskiisa xawaa, jidhkiisa laga abuuray. sida quraanku inoo sheegayo waxaa jidhkiisa looga abuuray labadan jinsi, rag iyo dumarku, inay isu dunmaan, inay isweheshadaan, inay isku xasilaan. jidhkaagii qayb ka mida waaye. hadduu noqon lahaa jinsi kale meel kale ka soo jeeda waxaa adkaan lahayd inay isfahmaan, inay isweheshadaan, inay iskeenaan baa adkaan lahayd. allah tabaaraka wa tacaala marka wuxuu ka rabaa guryuhu inay noqdaan guryo xasiloon. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله آيات كي سواوي وحا كمذا رقي الضمر كينو أبوري إنو الضمر كالرقة كأبوري سي أي سقو حسلان لتسكنوا إليها وحسلوني والدقنان شو والراحو. markaasaa alla wuxuu yeelay labadii ruuxi isqabay dhexdooda mawadda wa raxma, kalgacayl iyo isjacayl iyo isku kalsooni. cid kaloo ka dhaxaysa ayna jirin. labada ruux ee guriga wada joogay nolosha wadaagayay jacayl waxa ka dhaxeeya iyo kalgacayl uusan cid kale ka dhaxayn. allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala iyo naxariis, waa isu naxariisanayaan, waa isu danqanayaan. noloshii ay wadaagayeen ayaa marna jacayl iyo naxariisa, marna intay jacaylkii weydo iyo kalgacalkiiba waxay noqonaysaa in lagu wada joogo naxariis iyo isu turid iyo naxariis ayay marna noqonaysaa. say ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa xuquuqda la isku leeyahay in la ilaaliyo. xuquuqdu waxay u qaybsantaa 3 qaybood. mid ragga iyo dumarkaba waa laga rabaa, hooyada guriga leh iyo odayga guriga labadaba waa laga rabaa, way ka dhaxaysaa. xuquuq waa qaybta labaad, ninka laga rabaayo xaaska ku leh. qaybta saddexaad waa xuquuq uu ninku leeyahay oo xaaskiisa ku leeyahay. saddexdaasay noqotaa. xuquuqda ka dhaxaysa ee labada dhinacba laga rabo inay la yimaadaan waxaa ka mida in ay labadooduba ku dadaalaan ruuxa kale inuu ixtiraamo, in la is ixtiraamo, in la is qadariyo, in ruuxa kula jooga nolosha kula wadaagaya qalbigiisa aad ilaaliso, inaad ixtiraam siiso, inaadan ku xadgudbin, inaad ku kalsoon tahay oodan shaki iyo tuhmo ku gelin. haweenayduna ninkeeda inay ku kalsoon tahay, ninkuna xaaskiisa uu ku kalsoon yahay. shaki iyo waswaas inuusan gurigaaga kaa gelin. in aad ku dadaasho marka kalgacaylku idinka dhaxeeyana kalgacaylkaasi inuu noqdo xiriirka isku keen xidhay. haddii kalgacaylka iyo jacaylka iyo cishqigu uu daciifana
naxariis iyo isu turid sida aayaddu inoo tilmaantay in lagu wada noolaado. xuquuqdaasi waxaa ka mid ah labadaba la doonayo inay ilaaliyaan midba midka kale xuquuqda uu ku leeyahay inuu ka soo baxo oo iska ilaaliyo. maxaa yeelay haddii uu ninku xadka iyo xuduuddii shareecada u dejisay uu dhaafo ama haweeneydu xuquuqdii lagu lahaa ay gudan weydo xuduuddeeda dhaafto gurigu meeshuu ku burburaya halkaa waa. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay labada ruux ee gurigu ka dhaxeeyo nolosha wadaagaysa labadooduba inay xaq isku leeyihiin laakiin ragga hal darajo oo dheeraada la siiyey. wuxuu rabbi qur-aanka ku yidhi walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja. dumarku waxay leeyihiin xaqa ayaga lagu leeyahay mid la miday leeyihiin. u fiirso sida qur-aanku ka cabiray walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf. midka ayaga lagu leeyahay oo si wanaagsan loogu leeyahay mid la miday iyaguna leeyihiin oo ragga ay wada joogaan ay ku leeyihiin. qur-aanku wuxuu ka cabiray almithliya. tamaathulka waxaa la yidhaahdaa isku mid. xuquuqdan xaggan jirta mid la-eg baa xagga jirta. markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala hal qodob oo dheeraada oo maslaxadu keentay buu cabiray walilrijaali calayhinna daraja. raggu hal darajo ayay gooni u leeyihiin oo xuquuqda la isku leeyahay siyaada ka ah. darajadaasi maxay tahay? darajadaasi daruurada iyo duruuftaa keentay. gurigu ma jiri karo mana dhaqmi karo haddaan darajadaasi jirin. maxay tahay darajadaasi? waa midda aayad kale ilaahay ku sheego alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu. waa guriga iyo kala dambayntiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo ismaqalkiisa. taana waxay ku salaysan tahay sideedaba bini aadam wax wadaagaya oo nololi ka dhaxayso oo shaqo ka dhaxayso oo aan kala dambayn iyo nidaam lahayn ma socon karto. ma dhici karto labada ruux gurigaa ka dhaxeeya carruurtiibaa ka dhaxaysa noloshiibay wadaagayaan awoodna waa siman yihiin ma soconayso. laba awoodoodoo siman oo hal meel isugu yimid ma wada soconayaane qoorta isla gelayaan kadibna guriga waa burburaya. sidaas daraaddeed la kala dambaynta sida loo ilaaliyo ayaa ilaahay wuxuu yihi walilrijaali calayhinna daraja. darajadaasi waa darajada qawaamada, waa toosinta, waa amarka, waa go-aanka ugu dambeeya, waa guriga kala dambayntiisa. hadday qodobkaasi lumo oo ay noqoto yani anta amiirun wa ana amiir, adiguna madax baa tahay aniguna madaxa baan ahay, oo kala dambayntii gurigu waayo, markaasi gurigaasi wuxuu isu bedelayaa jaxiim, nolol cadaab ah oo kadeed ah oo rafaad ah oo islaantiina ku rafaado odaygiina ku rafaadu noqonaya. saas daraaddeed gurigu waa inuu kala dambayn yeesho. halkaa qodob marka laga reebo inta kale ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf. xagganna waxaa jira xuquuq baa lagu leeyahay, waajibaadna waa saaraya. dhankanna xuquuq baa lagu leeyahay, waajibaadna waa saaraya. si kooban haddaan u tilmaano xuquuqda haweeneyda ama xaaska lagu leeyahay ninkeedu ku leeyahay waxaa kow ka ah in ay ninkeeda amarkiisa yeesho, inay ka dambayso. dabcan amarkiisa la yeelayo waa amarka aan shareecada khilaafsanayn. mar walba ninka amarkiisa iyo waalidka amarkiisa iyo madaxda amarkooda sharcigaa ka sarreeya. waxa lagaga amar qaadanayo waa wixii aan shareecada khilaafsanayn. laakiin gurigiisa u kala dambayn u helo oo nidaam ugu socdo oo loogu nasto oo loogu raaxaysto, guriga waa inuu noqdo guri lagu kala dambeeyo. waa midda ilaahay qur-aanka kariimka ku sheegay faالصaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah. ilaahay markuu dumarka ammaanayay wuxuu ku ammaanay dumarka saalixaadka wan wanaagsanee ilaahay jecel yahay
وقانتات وحاي إلهينا وي أطيعان إلهي جي أبورتي زوج كودا يرق كودا وي أطيعان وي كدن بيان وي كأمر قاتان اسكومت تاغان لما فعل تمان وي كدن بيان بالي تبارك وتعالى قانتات مركب إن أي نين كذا كدن بيسو إن احترامته صح وحي قريقا كساب سن يهوليهيسا سيدا في يعني وإن لقوضة تشدو ونكو حاسكيسا رأيي سيو oo talada la wadaago sida ilaahay muuminiinta ku sifeeyay wa amruhum shura baynahum arrinkoodu waa wada tashi arrimaha muslimiintu sidoodaba qoys iyo mujtamac iyo nidaam iyo yani waa in laga wada tashado warseen yeela maxaa kula quman arintana soo daristay bal ra'yiga hal la rogrogo laana way ra'yi badan baa laga yaabaa inuu ku jiro hooyada guriga oo odayga ka maqan yahay baa dhici karaysa nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi siiradiisa markaan akhrino waxa soo baxay dumar badan oo aqliga iyo ilaahay yani weeyaan miisaanka uu siiyay meelo fara badan la intifaacsaday baa soo baxay sidaas daraadeed waa la wada tashan guriga arintiisa laga tashan muxuu ahay wadidiisa laga tashan caruurtii baa laga tashan noloshii baa laga tashan laakiin go'aanka kama dambaysta waa inuu meel ku xidhma jiro waa sida dawladda aad aragteen oo kale dawladdu haddii uuna jirin cid ugu dambaysa oo go'aanka ugu dambaysa leh ma jiri karto bal ilaahay kownkan aad arkaysaan ee dhisan ee nidaamsan allah tabaaraka wa tacaala inuu hal alle maamulayo waxa looga dhigay daliil looga dhigay in uu hal nidaam ku socdo shaygu hal nidaam haddii la doonayo inuu ku socdo oo uusan isardinin وصل إسكهر إيمان هذه اللدونيو وإن هل جهة ما مشوى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها كون كاني حدو هل إله كبضا أورهان لها وإلهية فربضني أو وضا فربضن أي وضا معمول لها وفساد لها وحين أركي لهين سألو تشوغنو قرح ديو إله لتغي ميد إله الله عرر يا صمدي ميد بعدين عقوستي نولكي ميد بعدين عجفصدي adoomadii oo la kala dareersaday wixii oo kharimay wixii inta la isku qabsaday lagu dagaalamay Soomaaliland aragneen sida hadda madaxdan adduunyadu sameeyaan dawladdan oo dhisan waxaad arkaysaa tu kale intay isqabteen madaxdii isqabatay dawladii isqabsatay midba mid la dagaalamayo dalkii baa burburaya ummadii baa rafaadaysa maxaa keenaya laana awoodaha la isku haystaa kawnkani inuu hal ilaah leeyahay oo maamulo oo ka taliyo abuurtay waxa lagu garanayaa hal nidaam buu ku socdaa gurigu markuu hal nidaam ku socdo waa jiraya fasaadku ka badbaadaya khilaafku ka badbaadaya dibku ka badbaadaya hooyada muslimada marka waa inay fahanto guri degan xasiloon caruurtii ku korto ku barbaarto wax wanaagsan ka soo baxo janno lagu kasbado adduunka lagu raaxaysto hadaa doonayso guriga kala dambeyntiisa ku dadaal qodobkaasi wali waa qodobka gaaladu inagala dagaalamayso waa gaalada iyo munaafiqiinta la socdaay ee ay tarbiyeysteen waxay ku dadaalayaan wax way guriyaha inay burburiyaan oo ay ka soo galaan oo yiraahdaan ma nin baa ku gumaysani ma seebaad guriga ugu joog seebaad uga amar qaadani isku taag xuquuqdaada ilaasho iska dhici wax la yiraahdo in rag iyo dumarkii colaad laga dhax abuuro oo iyagii qoorta la isu galiyo oo la yiraahdo muxuu ahaayay gurigii oo dhanba conflict qoorta la isku jira haweenaydii ninkiiba iska ilaalin ninkii haweenaydii uu iska ilaalin waa systemka reer galbeedka haystiya gaalada ku ay ku burbureen waay xasad waay waxay naga xastayaan annaga in mujtamacaadka naga dhisan yihiin guryaha naga dhisan yihiin xasilooniyo raaxo ku haysano hooyadii ku ixtiraaman tahay ilmihii ku korayaan ayagoo wanaagsan odaygii ku nasan yahay oo ku reexaasanayo tana xasad ka haya waxay doonayaan jidkay mareen inay mariyaan walil asaf waxa uu adeegaya dumar iyo rag ay soo tababarteen oo ka dhiganaya muxuu ahaayay xuquuqda dumarka sax dumarku waa bini aadan ilaahay abuuray xuquuqda ay leeyihiin taraggo kala weeye marka
qodobo maslaxadu ay keentay noloshuna qasab ay tahay inay jirto quraanku uu ka soo reebay sida saxdii waxa weeye walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf marka waxa weeye guriyuha ku kala dambeeya haweenayda ninkeeda isku taagta oo guriga kala dambeyntiisa aan ilaalinin waa haweenayda naashizada la yiraahdo waa naashizo waa ahlu naar naashizo waa ahlu naar sidaas daraadeed ayaa quraanka kariimka mas'aladaasi soo celceliyay gurigiisu u kala dambeeyo midda labaad weeye nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahadiith farabadan buu ku amray gabdhaha muslimaadka iyo dumarku inay guriga nidaamkiisa kala dambeyntiisa ilaaliyaan aayadii hadda aynu akhriyay baa kamida fasalihatu qanitat salaha iyo wanaaga dumarka guriyaha leh waa inay ragooda ateecaan xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu ahaa haweenayda shanteeda salaadood tukata bisheeda ramadaanna soonta xubinkeeda tarankana xifdida oo zinada iyo fuxshiga iyo xumaanta iska ilaalisa zawjkeedana ateecda oo gurigeeda kala dambeyntiisa ku dadaasha maalinta qiyaamada waxaa lagu dhahayaa iridaha jannada midka doonta ka gal galu fiirsada soo nicmo weyn ma soo barwaaqo ma iridaha jannada ka doonta ka gal in lagu yiraahdo maxay ku xidhan tahay gurigaaga inaad kala dambeyntiisa ilaaliso waa taacad zawjaha ninkeeda ateecda oo ka dambaysa marka wax way xuquuqda lagu leeyahay taasa kamida waxa kamida xaafidaatun lil ghaib gurigi in aad ilaaliso wixii u baahnaa in la ilaaliyo guriga sirtiisa ilaali guriga waxa lagu dhiibay ilaali guriga qaybta kaaga soo agaagtay mas'uuliyadeeda ilaali adiga naftaada iyo jirkaaga iyo cirdigaaga iyo gogosha guriga ilaali xaafidaatun lil ghaib gaar ahaan markuu odaygu ka maqan yahay odaygii baa maqan gurigii adaa jooga mas'uuliyadii baa ku saaran naftaadana way ka saarantay inaad ilaaliso ilmihii iyo gurigiina inaad xifdidooda ilaalisaa ku saaran waa xuquuqda lagu leeyahay ayay ka mid tahay sidaas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haweenaydii ninkeedii oo ka maqan biilkeedii iyo masruufkeedii waxay ku noolaayeen siiyay hadana baxday oo mas'uuliyadii guriga dayacday hanjabaad adag iyo goodi adag baa ku soo aroray waa halis sidaas daraadeed guriga waa inaad xifdidaan sirta ilaahay idin dhiibay waxa kamida guriga sirtiisa banaanka looma bixiyo gogasha sirteeda banaanka looma saaro cid kale lagalama sheekaysto dumarka imtixaanka ay qabaan baa waxay ka mid tahay meel marka la isugu yimaado lagu shahacabahayo waxa la isaga sheekeeyaa guryaha iyo asraartooda ya baba lagu shahacabaaba war sax maaha ha gurigu sir buu leeyahay ninku guriga sirtiisa inuu banaanka geeyo sax maaha haweenayduna guriga sirtiisa inay banaanka geeyso ma gurigu sir buu leeyahay waa inay surto hatta waxa laga cabiro fiirsada guriga markii uu muxuu ahaay hatta labada ruux markay isku dhacaan hatta guriga sirtii u qarsooneed isku dhacaas waa inuu banaanka u saarin waxa la doonayaa si ay u iraashanaato sirta guriga u xifdisnaato waxa la doonayaa wixii khilaaf ay yimaado dhexdiina ka heshiiye banaanka aysan u bixin haddaad ka maarmi weydaan dadka ehelka ah fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha dad ehel ah oo guriga sirtiisa idin ilaalin karaya oo maslaxa ka shaqeynaya dadka raadiye banaanka u saarin markay banaanka u baxayso waa mar laga quustay oo laga samro waxba laga qaban kareen markaas ay maxkamad iyo aada banaanka inta ka horeysa guriga iyo sirtiisa iyo wada jirkiisa in la ilaaliyo marka inaad xifdidaan wixii ilaahay idin amray inaad xifdidaan oo guriga iyo sirtiisa iyo masaalixdiisa iyo daniis waxa kamida guriga mas'uuliyadda aad ka hayso hadaad hooyadii tahay khiyaanada iska ilaali amaanad haysaa carruurtu waa amaano naftaadu waa amaano gogoshu waa amaano gurigu waa amaano
ديلك وأمانه أمانة إلالي أمانة إلالي هكو تكريفالين هكو تكريفالين أمانة الوجودي بي هخيامين إلهي خيانة ما تشعله حتى بني آدم كعادي أنا تخيانت الله ما تشعل المرة إلهي ما أقوله حتى قال هذا إلا خيام الله ما أقوله وحكي الإسكندر حتى قال هذا قولي كاجا إسكندر نين كاجا إسكندر خيانة إلهي ما تشعله هي مكرجة مركب وحوي إناد لقدبي الله بونكشقيس oo guriga saad uga shaqaysan lahayd ka shaqayso oo biilkii lagu dhiibay aad muxuu ay guriga ka dhisato oo hawlo ka samaysato oo aad hawl kale sanduuq kale meesha ku yaalaba sanduuq kale meeshii la rabay kalsooni iyo guriga hal la wada dhiso oo hal la wada koriyo oo waaba la kala shaqaysanayaaba waxa guri ku jiray Allah tabaaraka nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa kaynoo sheegay labada ruux ee wax ka dhaxaysa hadday amaanada ilaaliyaan waxay cadeeyaan si kalsooniyo wax ku wada wataan ilaahi tabaaraka wa taala waxa ka dhaxay waa u barakeeyaa waxooda waa loo barakeeyaa laakiin hadday been isu sheegaan oo iskhiyaamaan waxa ay wadaagayaan barakada laga qaadaa gurigii baraka male caruurtii baraka male waa lagu kadeedan yahay adaa ka shaqeeyay saas daraadeed guriyaheenu khiyaano ma aha guriyaheenu meel isku khiyaamo ma aha ninkuna reerkiisa ma khiyaamo iyaduna ninkeeda ma khiyaanto waa dadkii isugu kalsooni badnaa waa dadkii wax walba wadaagi lahaa waxa ka dhaxaysa sir aan cid kale ka dhaxayn sir aan hooyada kala dhaxaynin oo aabaha kala dhaxaynin baa ninkaaga kala dhaxaysa xaqiiqo waay aad sidoo kaleeto wuxuusan hooyadii la wadaagi karin aabihii la wadaagi karin ilmihiisa uusan la wadaagi karin buu adiga kula wadaagaa waxay mudan tahay marka guryaheenu inay kalsoonidaas deganaanshahaas xasiloonidaas inay yeeshaan waxay ku imaanaysaa xuquuqda ilaaliya waxa kamida guriga sida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkii xajjatul wadaa uu ku sheegay xuquuqda lagu leeyahay dumarka waxa kamida inaysan guriga u idmin cid ninku diidan yahay haddii uu ku yiraahdo gurigaas hebel ma soo gali karo ama hebla ma soo gali karto waa inaadan soo galin inaad challenge la samayso ninka tiraado way soo gali may uu soo gali oo ma arabtaa marka ya xaqa uu kugu leeyahay kamid tahay in aadan gogoshiisa u dhigin gurigiisana soo galisin cid una raali ka ahay xuquuq lagu leeyahay xuquuqda uu kugu leeyahay ay kamid tahay oo xaaska lagu leeyahay maxay ilaahay noqoto in gurigii cid walba iska soo gasho ninku wuxuu ilaashanayaa cirdigiisa wuxuu ilaashanayaa sharafkiisa wuxuu ilaashanayaa gabdhihiisa wuxuu ilaashanayaa gogoshiisa wuxuu ilaashanayaa xaaskiisa mas'uuliyad baa ka saaran mas'uuliyadii ka saarneed buu ilaashanayaa sax lama rabo ninku inuu masayrow noqdo masayrow shaki badan oo cudur ku noqdo marka dambe oo yiraahdaan meeshan yaa maray oo halkan maxaa dhacay oo meeshan raad baa galay oo kaba meeshan yaalay oo gogoshu saaka markaan ka tagay sidan uma oolin oo meesha yaa soo galay waa cudurkaas waa غيردي iyo masayrka shariicadu diiday waa laakiin waxa la doonayaa sax inaad ninkaaga yani wax way zaygaaga aad mar walba ku kaalmayso gurigan sidoo ku ilaashanaan lahaa xuquuqdiisana loo xifdin lahaa waxa kamida mas'uuliyadka hooyadu ay leedahay xuquuqda lagu leeyahay caruurta tarbiyada qaybta kaga aadan inay qaadato nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu lahaa kullukum raa'in وكلكم مسؤول عن رعيته والنبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها هوينيد نين كذا غريغيسي مسؤول كتا يدا اسغا لو ديري الهي راعيي وانا لو ويدين دونا مالنت قيامه ومسؤولة عن رعيتها غريغا يساد ولا دقنتو يساد او دقدو الهي هورتيسا مالنت قيامه سؤال با كو تعال sidaas daraadeed inaad guriyaha xifdidaan ila lisaan xuquuqda gudataan waxa kamida xuquuqdaasi xuquuqda gogasha kamida ya guriga hadii la isugu yimid ilmo la kala dhali rabo shahwadii la isku gudan rabo waxa la rabaa xuquuqda gogasha inaad ninkaaga tamkiiniso nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam haweeneydii ninkeedu uu gogasha ugu yeedho oo diida habeenkaasi malaa'ikta u cadhurta
يا ملائكة لعنة ديلا هذي سدا سيكو سعوتنا إلهي بيلو كلنتا يسوي حريسي مركا وحوي جوجشة خاصة دمركا الصومالي ده ميلها آل لوجع عليك مت يا رجي على البدن بيكيرين على الفربدن هي دعوة بدن باتمت أو جوجشة كوسابس جوجشة هالإسكاجاتش أو مش حيار لو ما يمانينه ninka in uusan u hawoonin meel kale waa inaad ka shaqeyso dumar far badan baa aad waxay uga cabanayaan ninkii wuu guursaday wuu iga tagay imaanahayo ee wuxuu rabay hadaad u diido soo tagi maayo wuxuu rabay hadaad u diido ama ku cuna qabatayso ninka wuxuu raasani jaaniska soo raasan ugu roonow si aad u ceshato oo ninka u xakamayso وحقوق ذا مهم كي الشريعة هذا عصلة يسمى كمت قريه إن الله ينوبرك هيو لكن قريه وحي كبرك كوبا يعني مركي إنه راعنا تشتكي شريعة إنه شكت حقوقها سوى وحيالها اللي يدين كلها هاي محاد يدين كل دي حقوق ذا الذين محيته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف مركو قرآن كويري حق اللي قوله مظلم ذا إليه حق عاد كل ذهين رقي إنه وحا كم ذا أو كوكا إن أي إذن كل معاملة وناكسة وعاشروهن بالمعروف والله تبارك وتعالى دمرك دقا وناكسا كل دقما وحو النبي كانوا يقول صلوات ربي والسلام عليه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رجب النبي يقول له صلى الله عليه وسلم وحكيري كإذن كفي عن رجي هداتين إذن كو خير بدن وأنك الرير كيسا وكو خير بدن أنا أقول وحانا هدان النبي محمد هاي نينك أهل كيسا وكو خير بدن وأنك أبو النبي صلى الله عليه وسلم دمر كمركو دلمامة يدبع عدو هذا إلهي سيدو أبو ري خصائصتا الرجي قد ويهين نبي وحو كعبر صلى الله عليه وسلم إن فهل الله عن لقى أبو ري هداد اسكو إذا إنا توسنا واتشبين فهل قرلوع لو أبو ري ما توستو واتشبين بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا اسكو إذا إنا توسيسو تشبين تيدون وافوريتان كذا فاستوصوا بالنساء خيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم تمرك خير الدردار ما خير كل رقمة رقم كوناتشية ودبع سنادة والنحريستا النبي صلى الله عليه وسلم آد وقدر دارما ما كم ذا أي الدمر كي مقالدي وحصوب على الدمر كي نرجع اسكو تاجين أو قريه بينه بربران كركوسة أو قاربنا هل اسكو تشران مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحو إدمي أو فصحي إن دمرك رجع هذا مركز اسكو تاجين إدبيان مركز رجع أنت جانس كي كفى إذا يستين بواحد بالله بين دمرك جراعان دمر بدن ولا جراعي ودعوة بقى النبي قوي صلى الله عليه وسلم مركز الدعوة دي كوبضتي والنبي يقول لها اللي رجع والدعوة دي بابضتي دمرك جراعي اسمه كعبنا ليس أولئكم بخياركم النبي صلى الله عليه وسلم كواس دمر كودا جراعي أخيارتي إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أخيار ما هو رسولك صلى الله عليه وسلم بمعنى وحويا يعني الدين تاني إلهي تبارك وتعالى دمرك واكو كرامي إلهي واكو شرفي حقوق بوسيي عقلي كودا على شرفي شيد كودا على شرفي عردي كودا شرف كودا على شرفي إن إنسان داوع يرجعين أيا دين تكود دا شيء وبني آدم كرامة له أو حقوق له بينما واجي هره وحلا دور لقى سبين شري الجاهلية دي يجون نول أو قبل أو سكر يو أبحة فإنت الله قبتان الكوست سلقلين شرو الأسي شري مركي أي يعني وحوي رحل أي شان رحل كوالا قدين شري بل يجا بلا رحل شري واحد إنه هذا الدماش دان يا بيشي للربي نين كذي لنتين رحشوا أيدي باب الله صفر يسمى ولا رحلي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها والمؤمنين تيو إلهي دين محلين إنها دمر كدحشان قسم إنها تكون دحشان صح هو إن إذا لقد انتهي هدا يضربت إن إنك أهل كيسي قرصته خيار بيلاده لكن إن اللي هذا ما يميل كلمة مركرته أنا هذا أنا يقرصته ومد أردال حتى لقوا قصبه ما وحقوق ده دحل ما ينلهان شيرين دحل بالسيه قري قال لقد المنشر حقوق إلى لسان لو سمي
diintani waa idin karaamaysa suurada dhan ayaa magacyadiina xambaarsan ya suuratu nisaa miyaad quraan ku aragteen suuratu rijaal ya suuratu rijaal quraanka miyay ku jirta may kuma jirto wax suuratu rijaal la yiraahdo ma jirto laakiin waxa jirta suuratu nisaa sidaas daraadeed allah baa idin karaameeyay allah idin sharfay idin karaameeyay waxa la doonayaa inaad idinkuna u noqdo shukrigiinu inaad shariicadii uu idinku karaameeyay ila lisaan kuriyeena ila lisaan xuquuqda aad leedihiin marka waxa kamida dhaqan wanaag sidii nabigeenu sallallahu alayhi wasallam umada ku tarbiyay xaasaskiisa ula dhaqmi jiray dhaqan wanaagsan iyo mucaasharo wanaagsan in la idinku la dhaqmo oo naxariis iyo dabacsanaan iyo kalgacayl iyo nuglaan leh waxa kamida xuquuqda aad leedihiin xuquuqda masruufka iyo marashada iyo maskanka lama dhihin gurigii la deganaa haweeneyda aduguna 50% keen ninkii ona 50% keen sida gaalada cadaanka reer galbeedku hadda yihiin ninku hadduu bakeeri keeno bakeeri guriga ayaduna waa inay saxankii keento waa gaalada cadaanka ee hadda layna doonayna ku dayano hadday iyadu firaashka keento isaguna waa inuu sariirta keeno lama dhihin shariicada u fiirsada waxa la yidhi ninka adaa mas'uulka ah gurigii diyaari gabadhii masruuf caruurteedii masruuf marashadii iyo dharkiisii markay jirto daawee asaga mas'uulka ah adu ama cirka keen ama dhulka keen ama meesha doonta gal reerkani adu mas'uuliyadiisa ku saaray ka horna marka guriga la dhisayo adeer guriga wixii lagugu imaan laha ku diyaari wixii lagugu imaan laha inta kaliya mehe guriga inta diyaariso gogashi diyaariso hadana gabadha mehersi war xageed ku aragteen waxa soo ka ya meherna si hatta haday taajirata haday taa aduguna faqiir tahay mehersi xoolo iyaga u khaasa waay hatta haday taajirata hay isaguna faqiir yahay reerka inuu iyadu ay masruufto laazim kuma aha xoolaheeda ninkeeda way ku sadaqaysan kartaa ilmaheeda way ku sadaqaysan kartaa laakiin waa ihsaan iyo samafal iyo wanaag waa laazim ah ya waa kii Abdullah ibn Mas'ud xaaskiisa sadaqayda macdayna la baxdo markaasuu Abdullah wuxuu ku yiri aniga caruurtaada ayaa mudan aniga caruurtaa mudan in nasi waxan aad meel kale u sii wado markaas waxay tiri maya sadaqaan u rabaa naanaga inagu baxdaay nasi maya ila annabi uu tago sallallahu alayhi wasallam rasuulka uu timi waxa lagu yiri rasuulka ilaahayow Zaynab baa ku joogta inay soo gasho rabto ayu zayani bihi wa Zaynabte Zaynabooyin way badan waa teebu nabi sallallahu alayhi wasallam imraatu Abdullah ibn Mas'ud xaaski Abdullah ibn Mas'ud waa ha soo gasho nabi sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tiri rasuulka ilaahayow ina wax sadaqaystaan damcay kadibna ninkayga Abdullah baa ugu dhago wuxuu yiri aniga caruurta mudana nasi maxaan sameeyaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa runtii waxaad wax siiso ninkaaga iyo caruurtaada ugu mudan Soomaaliyeed laazim kuma aha Abdullah wuxuu ma haysta markaa laakiin xaaskiisa waxa lahayd u fiirsada masruufka iyo marashada iyo reerkan iyo dhaqankiisa iyo gurigiisa iyo ninka laga rabaa waa mas'uuliyad ragga la saaray waa haddaad adigu caawinayso oo kaalmeynayso waa khayr Allah ku siiyo waa ducaysan tahay iskaalmeyntu iyo wax isla qabashadu meesha waa ku jirta laakiin xuquuq marka la yiraahdo hal kala qeexa haday noqoto xaqaasi raggu saaray yahay waxa kamida xuquuqda ay dumarku raggooda ku leeyihiin sidoo kale xuquuqda gogasha baahideeda gogasha inuu daboolo inta tabartiisa inuu xaqa gogasha u bixiyo kolba intuu kari karayo waxa kamida xuquuqda aad ku leedihiin aad ragga ku leedihiin waxa kamida inuu sharafkiina iyo cirdigaaga inuu ilaaliyo ku difaaco ila heer shariicadu waxay gaarsiinaysaa
ninka asagoo cirdigiisa reerkiisa difaacaya hadii la dilo waa shahiid ya man qutila duna ahlihi fa huwa shahiid nabi sallallahu alayhi wasallam ila heer waxa la gaadhayaa inuu ninku reerkiisa iyo qoyskiisa in xumaan lagu sameeyo uu ka xigo in la dilo oo uu dagaalamo wuxuu dagaalamayaa sharaftaada iyo qaraamadaada iyo ilaalinaya sidaas daraadeed waa shareeco qaabka wax u dhigtay xagga waxay qeexday xuquuqdii dumarku lahaayeen dhankana waxay dhigtay xuquuqii raggu lahaayeen dhexda waxay dhigtay xuquuqda idinka dhaxaysa haddii xuquuqdaasi la ilaaliyo oo dhinacyada ka kala imaanaysa guryaheenu waxay noqonayaan guryo degan guryo lagu xasilo guryo nolol wanaagsan guryo lagu raaxaysto guryo aan mushkilo lahayn sax marka qaarkood bini aadam baa la mushkiladu iska soo baxaysa laakiin haddana xal bay shariicadu u sameysay waxaan doonayaa inaan idinku daro haddii khilaaf yimaado guriga khilaaf soo galo see loo xalliyaa khilaafku wuxuu ka yimaadaa ama ninkii baa laga waayay xuquuqdii ama haweenidii baa laga waayay xuquuqdii ama waxaa dhici kartaba dabeecadii baa isu keeni weyday al-arwaaxu junuudun mujannada bu nabi sallallahu alayhi wasallam bini aadamka arwaaxdiisu waa ciidamo kale waxaa laga yaabaa laba ruux oo dabeecadoodu isfahanto oo ruuxdoodu isqaadato laba ruuxna inay kala boodaan oo isqaadan waayaan Soomaalidu waxay yiraahdaan labadanada jin baa col ah labadanada jin baa col wax jin oo col ma jireen arwaaxdiina iskeeni waay dabeecadii baa iskeeni weeyday markaas oo kale hadii gurigii yaani wax way arintaasi ku dhacdo maxaa loo baahan yahay kow wuxuu u baahan tahay in la soo sabro يا ماشي ugu dambaysa lagama qabto wala isu sabraa wala isu dulqaata khayr badan baa ka dhalan sabirka iyo dulqaadka adigoo arkaya inay xuquuqi ka maqan tahay waxaad rabtay inaadan haysanin ayaa hadana la doonayaa inaad sabirto inna allaha ma'a as-sabirin wax badan buu ilaahay ku siinaya imisa hooyo dib badan ku soo sabirtay guriga rafaadkiisa ku sabirtay odaygii xuquuqdii ku maqneed ku sabirtay ilaahay khayr badan ka siiyay oo wanaag badan iyo aakhiriye jannana ay ka heshay rido ilaahay ku gaadhay caruur barakaysan ilaahay ku siiyay tabaaraka wa tacaala ya sabirkay sabirtay ya abal gud wanaagsan ilaahay adduunyo aakhiraba ku siinay marka guryuhu sabir bay ku dhisay markii laga yimaado kalgacaylka iyo naxariista sabir bay ku dhisay guryaha waa in la isu sabro la isu dulqaato binaadamkan arkaysaan midba dabeecad buu leeyahay midba ilaahay sibuu u abuuray sida wajigeena sawirkiisu u kala duwan yahay oo midabkeenu u kala duwan yahay dabeecadeenu u kala duwanta saas daraadeed bini aadam baa leeyahay wa kullu bani aadam khata gafkeena badan turunturadeenna badan waxyaalo badan baa xad badan baynu gudbaynaa marka wax way dulqaad bay u baahantay haddii dulqaadkii la waayo la isu sabri waayo xalku muxuu yahay xalkaasi waxa weeye marka gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaaye hoos wax u xalista ya wada hadla sheekaysta tashada wax isla xaliya dhinacyo badan ka fiiriya caruurtiyo duurka aadi doonta hooyadiyo garoob noqon doonta odaygiyo banaanka u bixi doona warbaltalada aan rogrogno yaan lagu soo boodin gabadhu wax yaro khilaafa markuu dhacday uu ninka kuleetiga ku dhagto oo tiraado war ifur ama toori soo qaadanto sida dumarka Soomaalida toori su'aalaha ugu fara badan ee hadda la weydiiyay waxa weeye sheekhu islaantii toori bay soo qaato ana hurday dhuuntayga qabatay markaan baxsan waayeen waad furan tahay baan furitaan baan ku baxsaday miyay furan tahay misma ila naftaan kula baxsanahay war dumarka ragga toorida ka daayay oo biyaha adu kululeysanaysan iyo saliidan aad kululeysan ka daayay ya صح maaha waxa loo baahan yahay in la isu sabro la isu dulqaato hadii sabirkii la waayo waa in la wada tashawursan yeelaa ya waqtigaas la joogay adiguna aminkan banaanka kuma dhici kartid aniguna aminkan ma garoobayn karee war maxaa tala alla isu tanaasul markaa ya war aduguna xaq ka soo tag war anuna waxa ka bedelo war sidan aan yeelo hala wada tasho shaydaanka la iska naaro hadday socon weydo dhexdiina hawshii ka socon weydo maxaa xiga waxa xiga barnaamijka arinta fogeynina qoyska arintiisana meel fog ah ku tuurina waxaad sameeysan dad ehelka ah
oo caqli iyo diin iyo garasho iyo waayo aragnimo u saaxiib ah talada u gacan geliya waxay idin kula taliyaan raali ku noqda waa mid quraanka kariimku leeyahay fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha waxa ka horreysay isu tanaasulka inaad xuquuqdaada qaar ka tanaasusho asagii ku tanaasulo meel dhaxal isugu yimaado waa mid quraanku ka cabiray wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha hadday haweenaydu aragto ninkeedii oo ka sii jeeda oo meel kale wax ku lisaya oo kalgacaylkii iyo jacaylkii iyo wanaagkii iyo mucaamalaadkiisii wax iska bedeleen oo dhinac kale u sii socda Allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala in ay markaasi tanaasusho oo xuquuqdeedii qaar kamid ka tanaasusho isagana dambi ka soo gaari maayo iyadana dambi ka soo gaari maayo waa midii ku dhacday Sauda حاسكي نبينا صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين وحي هيد هويني يدو الدأوين بنبي قرصدي صلى الله عليه وسلم إلا الرسول كان صلى الله عليه وسلم سيدي هذا بقى دمركو قرصدي قراب بي وضع هاين مركا عاشا لغا صور قاربو يقو واوينو دأ نبي قرصدي صلى الله عليه وسلم سودة نبي مركو قرصدي ويدأو ذي وحوغا waxay istiri amu nabigu ku furaa markaas waxay soo jeedisay rasuulka ilaahay deedaadaas aan ahay طبعا waxay rabtaa inay xaasaska nabiga aakhira ka mid noqoto wax weyn Soomaa markaas waxay tii rasuulka ilaahay waxaan soo jeedinayaa habeenkii aniga aad iimaan lahayd dumarkaaga mid aad ugu jecesho Aisha ku bedelo habeenkaasi anigana xarigu هاي وحد ناضو أو هاي فرن فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا تنازل إنه يمادو وأما يسقي حقوق دي كتنازل أما يدو التنازل شو الله وحولي والصلح خير إن ليسوا التنازلا كخير بدن كوري وينو بربرو صوما إن ليسوا التنازل صلح يهشيس لقالو أيا حرية هدي أي لوضو ضدافتو لو الروح مركي إهل وعقلي يدقناشن وصاحبه ودين تقرنيا والإسلام وناك بكشقين دوران تلادها اللو ديبا قريقنا هلوغو حليو هدين لوضاسي أي دافتو ومركا أي بركام مالي نقط والله وضا النولان كرا أي نقط مركاس الله أمدو لي مركا وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته هذا مركا كالتقان اللي نقريقو إنو يسبدو العذاب oo hooyadii ku cadaabanto oo odaygii ku cadaamo oo ilmihii ku rafaadaan markaasi waa in guriga laga saaro xaaladan emergency-ga oo guriga markaasi si kale loogu taliyo waana marxalada shariicadu ay markaa ogolaatay furitaanka faymsaankum bima'ruufin aw tasriihun biihsan wanaag in lagu wada joogo iyo wanaag in lagu kala tago markii wax walba la waayo marka wax weeye in yurida islaahan يوفق الله بينهما مركا قوان وإن لقاته سيداسا شريعتنا ugu tala gashay guryaha nidaam bay u dejisay xaalada khilaafi maadana qaabkii loo xalin processkii loo xalin lahaa bay u sameysay inta ka horeysana ka hortag ila xilliga guur ku bilaabanayo bay shariicadu ka soo bilaabaysaa ila wada nooshada guriga lagu wada noolaanayo ayay soo wadaysaa ila khilaaf markuu yimaado sidii loo xalin lahaa ila markii labada ruux ay ku qasbadaan inay kala tagaan حتى أحكامته كدرنا سقابك لو كلا تجي شروع ذا سيدينتي ندجسي قريها مركها الله إلهيو إلهي هيدي بركيو هو ينباتهين هبلاتهين مستقبل بين دورنا محوها هاي جيري بس صوص عطا ما المهنا نول لا كليه معها وحين الرميسنا نولد دم باكرته نولش الدم باكرته كم يسمى مد ما أنت أجوت مد الدم بآخره أي نكت شنو إن شاء الله تعالى إنه ميل ونكسن كهله انت انو ادون كجوجننا aynu ku dadaal biidilaahi tabaaraka wa taala inaan diinteena ilaashano ilaahay wuxuu jideeyay wax dhaama ma jiro xeer jajabna guriga kuma dhaqmi karaan waxyaalo dhaxal oo laga dhaxlay umahado horo tagayna guriga kuma dhaqmi karaan dhaqan gaala laga soo ergistayna guriga kuma dhaqmi karaan dhaqan gaala laga keensaday guriga kuma dhaqmi karaan guriga way ku burburaan ayaga guriyahoodii burburiyay oo caruurtii qaxday oo hooyo kadeedan tahay oo aabba kadeedan yahay oo nidaamkii qoysasku u dhisnaayeen kulli baabeen
marka waxa weeye gacmahooda intay guryahooda ku kharibeen bay doonayaan inay nagana ina kharibaan saas daraadeed aynu insha Allah ta'ala guriga isku xinaantiisa iyo nidaamkiisa iyo xuquuqdiisa aynu ilaalina waliba dumarka dhankiina ka dadaala insha Allah ta'ala hadda idinkaan idin la hadlayaa ragga munaasabada lagu la hadlay waa munaasabad kale oo iyagana waa laga la hadlay wixii xuquuqa laakiin hadda idinka oo hor fadhiya oo wax idin sheegayo insha Allah ta'ala guriyaha laga taxadaro hana la ilaaliyo guriyaheenu haday liibaanaan oo xasiloonida helaan caruur fiican baa ka soo baxda gabadh fiican oo qiimo leh baa ka soo baxda wiil fiican oo mustaqbal leh baa ka soo baxa caruur si fiican u fikiraysa ka soo baxda laakiin guri hooyo iyo aabba isku maran yihiin oo qoorta isugu jiraan oo islaynayaan caruurta ka soo baxda caruur saalan ma gabadh waxa ka timaada iyo caruur confuse maskaxdooda dhan baa ayna deganayn ayaa ka timaada caruurta mustaqbalkooda saameyn weyn bay ku leedahay labada waalid iyo isfahamkooda حتى هذا إسخلافتان أو دحدين خلاف كتشرو المها الدرنزيننا المها دحدو ده هكون مرمنا هرتو ده هكون مرمنا هرتو ده هكون دجالمنا هرتو ده إسكو أفنافنا هذي كم مرمي ويدو حالة التمادو عرورته إسكسارة أما بناك وجبها عرورته مركز لما عملوا يصير هو موقته لبر روح أو إسجعل أو إسربا أو كل سوني إسكو قبا عرورته قابك هكو بربارين نحريسته هكو بربارين كل سوني ده هكو بربارين لما قرب عرورته هتوصينا واحد ينادو خلاف يدب أديك كان دحية إذا كان دحية نينكاغا مركا الله يدين بركيو كوريها اللي قد ذلك إن شاء الله تعالى هاد بعض ما سنتهن إلهنا التوفيق هنا وفتشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.